كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. إنا نوقع العلنه إنا نعتراف لسيسن كرين قد يد إيمانك قبلتينك يدين إسلامك انتبه إن وحي راي كونستيتيوشن كاي كونتينر كنوغو قرين أي هيد وحكستو دين إسلامك كهري منايا inay dambi tahay haddii lagu qaco. They are unconstitutional contaminated container. Waa container khariban qabiil qaran ma noqdo. Waa sababta loo yiri. qodobka koobaad ee Somaliland bay ku qoreen in diinta Islaamka wax kasto ka hor imanaya ay tahay qayr sharci laakiin qabiil qaran ma noqdo. qabiil sharci ma yeesho, qabiil constitution ma yeesho, qabiilna wax kameeya ma yeesho. دولة بعضت كحكمايسة أمت بعضت كحكمايسة وطريقة الله قاضيه. That was unconstitutional وريان ليدين دبر قين قبيل دولة نقواي. ساكو حالي دكالاتك على ما يوا دينتي إيمانكي تدكي والوالله قاتكي جوان كالله كيناي قيلة يا كونتينر ككوح النايو بلا هذا عايشان يصدق الصنم ايش اللي قوقف ليو. ساكو وحل يسوليمي ودينتي ما Soomaali nimadii iyo wixii laga dareeriyay iyo wixii la nacayay iyo qabiiladii iyo reerihiisa riyanayay saaka xalay sugu yimi waa diintii wala inna na'lata Allahi 'ala al-kadibin bi Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay kuwa beenaalayaasha nacdari korkooda ha ahaato wax i'tiraaf la yiraahdaana ma jirto i'tiraafna noqon mayso qudus baanu adiga ku siinay sidoo Netanyahu sheegayo 3,000 oo sano inay caasimadayda ahayd qarnigii nabi Daawud oo isagu David ku sheegayo. Call it what it is. magaceeda ugu yeedh. dadkana ay xadiid iyo wax adag ku noqotay inay dawladaha Islaamka iyo kuwa kalaba aqoonsadaan adigu si aad instant si degdega aan nagu aqoonsato inuu kaaga mahad celinayno inaad leedahay reer Tawraad iyo reer David iyo reer Bani Israa'iil ayay Qudus caasimad u tahay. كذبت على نفسك وكذبت الشخص وكذبت الناس dadkana been baad u sheegtay ilaahay hortiisana been baad ka sheegtay naclata la alayk qofkii waxa yiri oo marxaati furay hadalka uu natay oranay waxba ma bedeli karaan inaade waxba ma bedeli karaan hortay waxba ma bedelayaan laakiin way isku dayayaan deegaan iyo dhulba wixii ay ku dhibaateyn karaan inay ku dhibaateeyaan marka runtii in loo diyaar garoobo culimadoodii kama hadal culimo ma jirto shacab ma jiro waxba ma jiraan marka hortay taa waa inaad ogaataan qofka reer miyiga waa in saadki waa qorigiisa rasaasta meel la fadhiya qofka reer miyiga jaal ya muumini waa la galaa jaal ya muumini door waa in laga sifeeyaa wada xaashi waa ka soo dhamaaday waan u malaynayaa sida xaaji leeyahay wuxuu galay telefoon baa galay sida xaaji leeyahay inta telefoonku ugu jiro anigu waxyaabaan la yaabanahay waxa weeye marka bal Soomaalida iyo dadaalkeeda halka la iska dhigaba meeshan badda casiyo Hormuuska iyo waxa isku fadhiya nimankan islaamka sheeganaya haddii yuhuudi halka u soo fadhiisato wax ka furfuraya aan jirin iyo waxa isu gudbi karaan iyo istiraatiijiyad weyn bay helayaan waxa uga وادي كبحياي waxaan rabnaa marka walaal Allah waadi ka baxayaa insha Allah waxaan idin sheegayaa nimayo lama dhayalsan karo sida adigu aad moodaysaan maaha dadka waa inaynu xaqiiqda ku soo dhawaanaa nimankan iyo shacabkoogba waa gaangis waa ummad isku duuban oo gaangisa marka nimahan u baahanahay reer waqooyi bari waxa weeye halgan dheer bayna sugaya dal iyo dibadba halgan dheer bayna sugaya deegaankeenna iyo dhulkeenna weerar baa lagu yahay maantana yuhuud baa la doonta niman yahow waxba ha eegina xaggan dawlad federaal iyo waxba xaggan ha sii eegina waxba xaggan ha jaleecina wixii idin la gudboondee dhulkiina si dhulkeenna aynu difaacan lahayn aynu nimanka haraga uga siibi lahayn aynu dadkeenna reer miyiga qof kastoo reer miyiga waa in saadkiisa loo dhamaystira waa in la yidhaaho waa ina diyaar ku jirtaa is ilaalisa waxa weeye nimankanu waa gaangis waad aragteen saqiir iyo kabiir siday u wada hadlayaan
af hal luuqad bay ku wada hadlayaan innakuna waxaynu ka sheekaynaynaa waa Soomaali iyo waa Soomaali iyo waxba ma qabanayaan iyo waa sidan iyo wallahi wax ma bedeli karaan iyo wallahi ma samayn karaan iyo waayahay maanta xuduudku waa xidhan yahay habar jecla way bakhtiday xalaal ah haddana ma istaagayaan bal inay dadka rugaangis yihiin oo ummadda rugaangis tahay baan حاجة تلفون بسوق لي مر بوريري عاشا لو مغلمة يا خدك كاحمي حاجة وحلقة مغلمة haddaan meel istaagaya haddaan yar istaagaya waa idinka baxay insha Allah waa hadda may maqashaan ها هذا مغلا haddaan istaagaya waan istaagaya oo baabuurka iyo waa idin haddaan yar istaagaya shiikaadi marka waxaan idin sheegayaa niman yahow waa idinku dheereeyay raalliga ahaada laakiin waxaan idin sheegayaa waxay gubayo ay dhibayaan nimanka dadku waxyaabaha aynu iskugu sheekayno ah wallahi nimankanu waa dad Soomaaliyeed magaca waa inaad dhigtaan dhulka qof reer waqooyi bariyo dambe nimankanu xitaa islaamnimadoodii waad aragteen halkay ka taagan yihiin qiyankii islaamnimada halkay ka taagan yihiin Soomaalinimadana iyo waxaan laga sheekeeyay waa dad Soomaaliyeedna horta waa in meel la iska dhigaa yaan qof reer waqooyi bariyo afkiisa laga maqal waa iga talo taas waa taa nimankanu waad aragtaan inay gaangis yihiin bal tusaale waxaad ku qaadataan oo ku qoos qaadataan iska daaya waxa dhacaya yuhuuddan iyo iska daaya bal hadda burco waatan bakhtiga xalaal ah hudheeladoodu waa xidhmeen wax walba waa xidhan yihiin waa bakteeyaan macluul bay nafleeyihiin haddana siqiir iyo kabiir waxa laga midaysan yahay deegaan ay dhul aanay lahayn inay ku dhamaadaan waa diyaarsan yihiin reer miyigoogii yagii shacbiyadoodii kulli waa qaylinayaanoo dhul aanay lahayn bay diyaar u yihiin inay ku dhintaan ay raadsadaan marka maxaa kula gudboon mar hadday sidaa yihiin yuhuudna raaceen waxaa kula gudboon iska daakad qabatay inaad haragga isagoo nool oo dhawaaqaya oo qaylinaya intaana nafta ka saarinba isagoo nool inaad haragga intaad ka saarto qaylinaya oo waliba la daawanayo adduunyada laga daawanayo aad haragga saa uga siibto tan war dhinacay qabo haragga laga siibo oo naagta haragga laga siibo oo dhirta lagu waro jannadaad hore ka gelaysaa jannada waxa la yidhaah baad hore ka gelaysaa waayo de maanta waad aragtaan cid kala duulaan laguma aha wallaahi cid kala duulaan laguma aha iska ilaawa Soomaaliya waxa waa inaka ka wiil waxa dhulka la doonayo amba weerarka lagu yahay cirdigooga iyo sharaftooda iyo dhulkooga oo marba yuhuud iyo adduun iyo qayrada yeedhaysa ee marba gidaar la isku qaadayo Soomaalina madaxa u salaaxayso horta waa deegaankeenna horta qabsada reer waqooyi bariyo waa deegaankeenna nin kale Soomaaliyeed maanta xuduudna lama leh ma aragtay wiilalna isma hor fadhiyaan marka waxa loo baahan yahay qofku waa inuu horta maskaxda geliyaa war Soomaalidan kale iyo bal waxaan kale intaan la gaarin war bal nimankan qamaamaya dhulkaaga ku soo qamaamaya Soomaali madaxa bay u salaaxaysaaba waa dadkan ay maskaxda ka bedeleenoo dadkii Soomaaliyeed mid walba ku leeyahay wallahi waa dhibaato loo geystay wallahi sidan baa la yeelay wallahi sidan baa la yeelay war bal dadkii ay laayeen yaa kala xisaabtamay ma arkaysid qof Soomaali ah war nimanka anu waxaan ka yaabay heerka Soomaali ay gaarsiiyeen qof Soomaali hor imanayaan markaas oo oranaya wallahi aniga waa la dilayo aniga waa la dhibaateeyo stupid adiga maana dad laynin adigu dad maana xasuuqin ummad Soomaaliyeed maana layn hadda hudisa ya sheekh maalin walba waa sheega dadku ma oga hudisa sheekh iyo laalays aniga abahay sarkaalba hudisa ya sheekh iyo laalays iyo meesha la yiraahdo laalays iyo hudisa ya sheekh 278 qof bay ku laayeen oo maatay iyo caruur dad qaxaya ah laba caris ma weydiin haye ka gudub haye xeebta berbera maxay dad ku soo qabteen waad ku arkaysaan YouTube-ka hadda ku qortaan xilliyadii ay soo galeen berbera iyo soo galeen madaxay ka wada tooganayaan waa ku xeebta dadka laynaya caruurta iyo dumarka iyo maatada waabay duuban tahayba haye hargeysa duleedkeega maxaa ka dhacay geed deebla maxaa ka dhacay xiriye aawan
حرية دارو مدكو قحين بيلاين يو حقي وقحين ما يسوي تبرت يو حقي آذين يو من لي وانا اللي حقي تجين يا كد انتي بل هو ما يسوي ديسين waxay tageen meesha la yiraahdo dulcad iyo waxa loo bixiyay banka dhan jigjiga dulcad iyo baliyele iyo jinifa loo bixiyay waxa loogu qayminayay misir iyo badar iyo saliid ba amaarku ugu qayminayay waxari kama dhiman hal qof kama dhiman dhammaan way ka bixeen magaalada Hargeysa magaalooyinka dhan way ka bixeen dhulka hadda ay degayeen dawladda deegaanka Soomaalida ka hooseeyo dhani waa markii dambe ay soo noqdeen xiriyaal xiray waa dhulka hadda ay degayeen dhulka ay deegaameeyeen ay degan yihiin way dhulkaas meesha dhulka la dajiyo Itoobiya ay dajisay waxay haayeen baliyele iyo jinifa iyo dulcad baa loo bixiyo banka jigjigo dhan baa saa loo dajiyay habari kama dhiman iyagu jabhada intay soo galeen bay ummadii Soomaaliyeed iyo gadabuursiga iyo ummadii kale Soomaaliyeed bay xasuuq siday tahay hadda ninka Muuse bixi la yiraahdo hal maalin iska daa intuu dilay hal maalin soo galay hal maalin oo soo galay arabsiya duleedkeega wuxuu ku dilay 48 qof ku dilay hadda waa ninka shakhsi waa isaga iyo 40 inuu watay 40 iyo dheeraad nin bay ku dileen ay ku gowraceen ku dileen uu ka talaabsaday intaanu soo galinba meesha waaya nimankan iyagoo Soomaali waxa sameeyay oo inakoo reer waqooyi bari ah ilaa xilligii daraawiishta iyagoo Ingiriis wata oo balaayo wata oo gaalo wata oo maanta u dambeysay magaaladeena iyo caasimadeena ubuucdeena caloosheenii aad ogeydeen waxay duqeyn ka geysteen iyo xasuuq iyo abwaan iyo aqoonyahan inta ay laayeen ba haddana waad arkaysaa reer waqooyi bari mid koorani wallahi waa la wada dhashayo wallahi nabad baa la doonaya dadkuyo wallahi dadka guur baa ka dhaxeeyo wallahi dadku waa dad Soomaaliyeed wallahi way soo noqon doonaano wallahi waa sidano marka waxa loo baahan yahay niman yahow dadkan horta waa dad noocaas reer waqooyi barina waa inay qofku haddaanu qadiyad lahayn horta ka dhimay sideedaba qofku haddaanu qadiyad lahayn oo dadkiisu waxay u dhinteen aanu aqoon horta ka dhimay wuu ka dhintay qofkaas ku rajan male qofku bilaadanku kaasi waa ku daayay dadkeenna waxaan leeyahay war ballimayo baldiba xasuustii baad moodaa ilowshaha waxa la yiraahdaa inaka inugu badan waxa ilowsha la yiraahdo in kaaridu ku dhacday baa ilowsha inugu badan war baliya dirbu milicsada bal intii dhibaato ay inoo geysteen barina kaahin iska daa badhaga weynahan iska daa bal umadahan kale iska daa bal waxay dhulka ka geysteen iska daa bal waxa iska daayay bal wixii maanta dhacayo 23 wixii dhacayay 23 waxa dhacayay iyo maanta heerka ay marayaan iyo waliba carabka ay wali maynaan guulaysan maalintii aynu guulaysanayna garaadadeena aynu hor istaagay dhulka lagu dagaalamaya waa dhulkeeni waa deegaankeeni waa dhulkii xoolaheenu daaqayeen waa meesha wiilasheenu joogaan maanta furimaha ay taagan yihiin weeye dhulkeeni weeye ee nimanka lagu hor taagan yihiin inaku difaac baynu nahay maxaa la rabaa ninkan nabaday dhahaya waxa la rabaa in ninkan dhulkiisa meeshu isagu dhulku joogo inakaaba iskale marka la gaaro la tago inaan ku xarig laga reebin waa in isaga afkiisa ay ka yeedho war nabad baan doonayaa markuu madfuucu ka dul yeedho oo qoriga sikaawu ka dul yeedho oo maxaan ku rahaayay naagta la gowraco oo ilmaha la gowraco oo guryaha si u gubayeen loo gubo oo siday tahay cagta loo mariyo حسن وإسراعنا يسوق قبيسينية هاي نادر مود قال لنا خير الله كسير نكا ولا مود قالية مركا waxaa la rabaa qofku inaadir mood gali gabadhii ma inaanta maamulka waa gali marka waxaan rabnaa marka qofka bini'aadanka waa raliga waa idinka tag qofka bini'aadanka waxaan rabnaa wali maynaan guulaysan ilaa aynu nimanka cagta marino oo guryahooga gubno oo tuulooyinka ay joogaan aynu cagaf galino aynu wali inaku difaac baynu nahay wiilasheena difaac bay ku dhamaadeen dadkeena difaac buu ku dhamaaday wali nafteena baynu la xarbeynaa wali waynu marka wali maynaan guulaysan sababtan ay marka u dhawaaqayaan ay leeyihiin wali deegaankeena ay u sheeganayaan wali dhulkeena ay u sheeganayaan wali carabka afka dhulka ugu hayaan wali ay u qaylinayaan sababtaas keenaysa wali waxba kamay dhiman wali waxaan ka dhintay gooja cadda kaga dhintay waa federation waa wax la isku keenay oroma ku jirtay isaaqoo dhan waa federation 8 haamood weeye waa federation habar barona samiyad aragtay waa maya waa federation bay haayeen wixii ku dhintay way xasan cidna ma hada hayso
laakiin siday deegaankeenna ay u duqeeyeen iyo shacbiyadeenna ay u duqeeyeen weli looma duqaynin loomana layn marka waxaan u baahannahay niyow nimankaas waxa weeye maanta yuhuud bay tageen wallahi waxba fikradda qof walba isaga waxba kama keenayaan wallahi way ka keenayaan sunti bay ka keenayaan oo hubki baa loo keenay oo waxbay ka keenayaan oo dhaqaalay ka keenayaan oo wixii adiga lagugu dili lahaa bay ka keenayaan marka waxa qofka bini'aadamku waa inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiya marka reer waqooyi bari waxaan u baahannahay halgan dheer bayna sugayaan dal iyo dibadba waa inaan u diyaar garownaa nin kasto waa inuu community-ga ku xidhaya iska diiwaan geliyo waa inuu la diyaar garoobo nin walba dhaqaalaha waa inuu kaalinta ugu sarreysa ka qaato nin walba wixii loo baahdo dowladnimada waa inuu ku garab istaago ayaa loo baahan yahay dadkeenna reer miyigaana waa in la wacyi geliyaa nimankan sun bay soo qaadanayaan wax walba way soo qaadanayaan waa in dadka reer miyigana la wacyi geliyo oo la ilaaliyo oo la wacyi geliyo oo wax loo sheego oo saaradooda loo dhammaystiro oo waxa weeye cirdigeenna iyo sharafteenna ayaa weerar lagu yahay waa ku salaamay walaal hadda waxaan soo dhageystay wasiirka gaashaandhiga Axmed Fiqi oo dhahaya muxuu ahaa waa in si degdeg ah loo geeyaa ciidan maaragtay 26 xinadaad miya maqan geelaas caanood ama waqooyi bari marka waan loo soo wadaa insha Allah waa dawladda Soomaaliya meeshan wax anaga kaliya noo yaala maba ahanba ma garat intaan difaaci karna waa difaacnay laakiin hadda dawladda Soomaaliya maaragtay waa imanaysa insha Allah وانا اسك دفاعينا دون ووري يا حاجيو لكن waa kugu raacsanahay waa inaan isqaban qaabinaayo istiyaarinayo dadkan ma aragtay ma inaan waa runta waa mahadsantahay aad aad baa mahadsantahay waa kulli waa mahadsantiin laakiin waxaan rabnaa in sida aad sheegayso waan soo dhaweynaynaa ciidamada iyo dawladda federaalka annaka waa la shaqaynaynaa maanta diinta iyo dalka ayaa weerar lagu yahay marka waxaan u baahanahay nimanka waqtigooda waa dhamaaday laakiin isaga bay idin sheegay ninka yuhuudka u tagay muxuu idin yiri anigu maanta garab baan haystaa yuhuuda buu yiri qofka bini'aadanka war hadalkiisa waa la dhageystaa wuxuu ku yiri ninka la yiraahdo war maanta anu yuhuud baan haystaa hadda kiima dhibaanka hayo kii u gabooyay u hadlayay meesha ay wasiirka warfaafinta ka dhigayna meesha u fadhi muxuu shalay lahaa war maanta sidii hore ma nihin waanu haysanaa anu I know aniga aan idin la hadlay I know rasaasta loo dajiyo waan ogahay aniga idin la hadlaya aniga berbera dad baa ii jooga I know rasaasta loo dajiyo anigu waan ogahay saraakiisha ku jiraysa waan ogahay marka qofka inuu xaqiiqda ku soo dhawaado ayaa og kulligeenna waa inaan wada sirdoon noqonnaa oo dawladnimadeena garab istaagnaa xaqiiqdana dadkeenna u sheegnaa dadkeenna dhageysanaya waa inay ogaadaan oo cadawgan waxa moodaa halgankiisiya in laga gaabiyey baa moodaa in laga gaabiyey in la isbaraarujiyo waa la rabaa inaad waa mahadsantiin aad baa mahadsantiin waqtigaas siisteen waa raalli ahaadana waa mahadsantiin in la isbaraarujiyo horta waa la rabaa xaaji waa runtiis halgankii waxa moodaa dadkii intay guulaysteen in la seexday baa moodaa oo wax walbana dawladda lagu hadlaynayo oo wax walba maamulkii meel la leeyahay war aynu isbaraarujinno waxa loo socda waa dhulkeenna yuhuudda waxa loo raadsaday waa dhulkeenna shalay wixii ingiriis loo raadsaday waa dhulkeennu ahaa maanta cirro dhul uu kula shuraakeeyo yuhuud ma haysto waxa uu kula shuraakeeyo waa ceelkaa dadka igala qaadu yiri ceelkaasaa meesha wax muhiima yaalle ceelkaa holhol baa loo beretamayaa gaaladuna lacagta waxay ku bixinaysaa yuhuubka waa ceelka holhol ma aha waxay ku bixinaysaa hargeysa wax yaaliyo wax berbere yaale berberiyo hargeysa toona shidaal ma yaallo waxay ku bixinayaan waa inay dekadaana berberana ka dhigtaan meel ay ka duqeeyaan dadka muslimiinta ah ku dhibaateeyaan ceelka holhol ay ka soo gaaraan marka dadka waxay leeyihiin ceelka holhol nimankaasaa naga xoog batay nagala qaada waad aragtaan waxa loo socdaa waa dhulkeenni weli waxaynu difaaca kaga jirnaa waa dhulkeenni odayaashana waxaan leeyahay war marka dagaal la qaado dagaal wuu imaanayaaye marka la qaado oo nimankaa dhulkooda la tago qaylada joojiya aad dad ka dabaqaysaan iyo istaagaya fadhiisatadaan aa intaa shubaysaan abaayo dhumaya waxa isweydiiyaa fiiri maalin dhaweed waxaa jira wiil yaroo xanuunsanoo midhaa ciidanka iskala joogjoogayo maskaxiyan u xanuunsan waa qaadeen indhahay ka xireen waa aragtay say ma aragtay ula dhaqmaayeen annagana waab u jeedaa marka la qabtaba inta loo qubeeyo oo kareem loo mariyo oo waxaan ku leeyahay wiil waadeera ma ku dhibaateeyeen ma ku dhibaataa soo qabtay ma ku dhibaateeyeen
marka waxa waay ma taqaanaa markaas nin isaaqa baa maalin dhaweed hadlay odaga yar madow aan dhageysto wuxuu ka sheekeynay nimanka ciise markaas wuxuu leeyahay oo ay u tageen kuwii halkan joogay waalwaalnaay xabada la isaga dhigi jiray habar jeclo markaas wuxuu ku lahaa war maxaad ka doonteen war maxaad ka raadiseen meesha loo yacado war dadkaas dad taqaanaan maaha war ma dhulbahantii baad moodeen idin naxariisanayo idin qubeynayay oo idin qabanayay kuwa haragga idinka saarayaan haragga waa niman ciise yani dadkan waaba la sahansadayba ma garatay qofka markuu ku arko inaad markuu ku yimaado kugu soo ordo aad iska qabatido soo kula dhaqmo aad ula dhaqantid an eye for an eye kuma soo degdegayo laakiin reer halkan la iska sahansaday buu waalna nin baa soo galay hadda korba Naciime waxa la yiri waxa dagaalamay waa la ugaadeen iyo Oromo markay dagaalameen waxa la ugaadeen ku nimanka ay qabtaan de waxna waa caadi dagaalka wixii ku dhintay wixii maxaabiis loo qabtaan caadi bay isaga xiri jireen ma taaman jirin waxa la yiri markaas ay Oromadu intay qabato nimanka bixiniyaha ka tumi jireen waxa la yiri ninkii oo tuman sida xoolaha ama xiniye laga jaray ama bahalkaysan baa la keenay hadhow markay maalin keeneen aduu waxay keeneen dhowr iyo 20 nin oo isaa u soo galeen baa laga soo wareegay yaanti damo dagaalku xoogaa qaboobay ayaanti damo dagaalkii bilaamay ugaadeen boqol nin oo Oromo ah bixinihii ka jaray qardam maalintaas baa ugu dambeysay nin damo xinihiisa taabtaan ee Oromo maalintaas ugu dambeysay halkaaba sida walaal hadda soo ma jeedo qaniya ka fujisa walaal hadda soo ma aragtid Mareykanka